addoon u dhabar adeegay diintan. ليس بعد الآن، ليس بعد الآن. أحد mu'adinkii rasuulka أشهد أن لا إله إلا الله. inuu cumar ku sheegay inuu yahay madax. waxaynu muuqaalkeena maanta ku soo qaadanaynaa bilaal bin rabaaxa iyo hayaankiisii laga soo bilaabo addoonsiga ilaa madaxnimada islaamka. magacaygu axmed maxamed, halkanina waa halgan miidiya. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. ugu horreyn intaynaan muuqaalka u gelin haylaawin daawade, haddaan weli ka mid noqon saaxiibada ku xiran channelkan, nagu soo biir oo subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub. adoo mahadsanna soo daawo kuwii hore. haddii aad ka hesho muuqaalka, haylaawin inaad like saarto lana wadaagta asxaabtaada, maxaa yeelay waxaad qayb ka noqonaysaa inuu gaadho saaxiibo cusub. mahadsanid daawade. haddana adiga iyo muuqaalka ayaan idiin kala tegayaa. waxaa laga hayaa cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee marka lasoo hadalqaado abubakar wuxuu odhan jiray kaana abubakar sayidana wa actaqa sayidana. abubakar waxa waa madaxdeenna, waxa uu noo xoreeyey madaxdeenna, oo uu la jeeday bilaal bin rabaax allaha ka raali noqdee. ninuu ku tilmaamay cumar madax waa nin taariikh weyn leh oo u baahan in taariikhdiisa la soo tabiyo. bilaal islaamnimada ka hor waxa uu ahaa addoon u adeega mudanihiisa, raacana geeliisa, taa beddelkiisana la siiyo wuxuu cuno oo aan sabab badnayn. tilmaamahana waxa uu ahaa addoon madow, hilib badanna aan lahayn, dheer oo timo badan. waxa uu ahaa addoon ay isku mid tahay maalmihiisu, aan xaq u lahayn inuu maamusho maalinkiisa, beridiisuna la jabeeshay. sheekadani waxay ka bilaabmaysaa nin la odhan jiray cabdullaahi bin judcaan. waxa uu ahaa nin addoomo badan. waxaa la gaadhsiiyey tiradooda 100 addoon. markii nebiga la soo diray waxaa la amray in addoommada magaalada bannaankeeda loo saaro si aanay ugu fidnoobin dacwaddii uu waday nebigu, naxariista nabadgelya korkiisa ahaatee. waxaa laga soo rabay addoommadii bilaal si uu geela u daaqsin geeyo maalin walba. haddaba maalin maalmaha ka mid ah, nebiga iyo abubakar ayaa u baxay inay ku soo cibaadaystaan meel god ah. waxaa soo agmaray bilaal oo wada adhiga cabdullaahi bin judcaan. waxauu nebigu ka soo baxay godkii, wuxuuna ku yidhi, ninka adhiga wadow caana ma helaysaa? waxa uu bilaal yidhi, waxaan maamul u leeyahay hal lax oo uu ku jiro quudkaygu. haddaad doonaysaan ma idiin diisanayaa, xaawan sidaasaan ku caanabeelayaa. kadib nebigu waxa uu ku yidhi, keen. nebigu wuu lisay, wuxuuna ka buuxiyey weel, wuuna cabbay. haddana wuu lisay, wuxuu ka buuxiyey weel, wuxuu u dhibay abubakar, abubakarna wuu cabbay. haddana wuu lisay, wuxuu ka buuxiyey weel, wuxuu u dhibay bilaal, bilaalna wuu cabbay. ilaahay kulligood ka wada dhergeen. kadib wuu diray nebigu iyadoo intii laga cabbay ka caana badan. nebigu waxa uu soo bandhigay bilaal, ma islaamaysaa? anigu waxaan ahay nebigii ilaahay. bilaal wuu islaamay. waxauu nebigu yidhi, qarso islaamkaaga. wuu soo hoyday bilaal isagoo islaam ah, watana adhi caana badan. reerkii cabdullaahi bin judcaan markay arkeen caana badnaanta waxay yidhaahdeen, waxaad geysay maanta meel daaq wanaagsan. isla meeshaa berigee waxa uu 3 maalin ku noqnoqonayey nebiga, caanahana uu cabsiinayey, diintan uu ka baranayey. maalintii afraad, abujahal baa waxauu soo maray reer abujudcaan. wuxuu yidhi, waxaan arkaa adhigayga uu koray, caanahoodina way bateen. waxay yidhahdeen, waxay arrintani dhacday 3 maalin ka hor, sababtana garan mayno. wuxuu abujahal yidhi, ilaahay baan ku dhaartay addoonkiinuu og yahay ama uu garanaya meesha uu joogo ninkii la odhan jiray abukabsha, oo uu la jeedo nebiga. u diiday inuu maro waddadii hore daaqsinka, wayna u diideen reer abujudcaan. waxaa u yimid nebiga camar binu cabsi assulami, allah ka raali noqdee. markii nebiga la soo diray wuxuuna weydiiyey, yaa kula socda oo ku rumeeyey? waxuu nebigu yidhi, addoon iyo xor, oo ula jeeday abubakar iyo bilaal, labadaba allah ka raali noqdee. bilaal waxa uu ahaa xagga addoommada qofkii ugu horreeyey ee islaama, waana qofkii labaad ee ka islaama xagga ragga, oo abubakar uunba ka horreeyey, iyadoo aynu ku dhisanayno xadiiskaa aynu soo sheegnay. haddaba bilaal arrinkiis waxa uu fashilmay markii u suurto gashay inuu si dhuumaatii ku galo kacbada. hareerahan uu iska eegay, cidna muusan arag, laakiin muusan ogeyn inuu qurayshi taagan tahay kacbada dhabarkeeda. waxa uu kor yimi sanamyadoodii isagoo candhufo wejiga kaga tufaya, wuxuuna yidhi, wuu hoogay oo uu ba'ay kiidan caabuday, wuu hoogay oo uu ba'ay kiidan caabudaa. kadib waxaa aragtay quraysh, wuu cararay ilaa uu galay gurigii ninkii madaxda uu ahaa cabdullaahi bin judcaan. way ka daba galeen. waxa u yeedhay cabdulaahi, cabdulaahi ma waxaad ka baxday diintaadii? waxa uu ugu jawaabay,
midna waxaa la yidhaahdo ayaan ahay. waxay yidhaahdeen haddaba madoobahaagii kuu joogay waxa uu sameeyey sidaas iyo sidaas. waxaa la soo qabtay bilaal wuxuuna qirtay inuu islaamay nebigana raacay. abujadcaan waxa uu ku yidhi abujahal iyo umay binu khalaf idinkaa iska leh waxaa doontaan ku sameeya. waxaa qaatay bilaal umaya oo ahaa madaxa reer bani jumax oo uu ka soo jeeday cabdulaahi binu judcaan. bilaalna uu ahaa addoon ka mid ah addoommadooda. waxa uu umay dhaar ku galay qoraxdani maanta dhici mayso, waxaa la dhacaya islaamnimada addoonkan, yacni intaanay qoraxdani dhicin ayaan ku soo celinayaa diintiisii. waxay ahaayeen kuwa u soo saara qoraxda xilliga duhurka ee uu saxaruhu noqdo dab iyo naar. waxaa la seexin jiray quruuxa saxaraha kulul isaga oo qaawan. kadib waxaa caloosh laga saari jiray dhagax weyn oo kulul, laga yaaba dhagaxaas waxaa wada 3 nin ama 4 nin ku dhowaad. bilaalna keligii way xamilayaan. bilaal waxaa la marsiin jiray ciqaabta maalin walba. umayana wuxuu odhan jiray kama suuli doono sidaas ilaa uu dhinto ama uu ku gaaloobo maxamed. laakiin bilaal waxa uu ku dhabar adeegay diintiisii, waxa uuna u bareeray dhibkaas, wuxuuna isku sabirsan jiray haystiisii taariikhda gashay ee u waartay axadun axad axadun axad. waxaa la odhan jiray hal mar ilaahayadeeda soo qaad, waa kelmad uun mar uun xus laataya cusa. laakiin bilaal wuu diidi jiray inuu yidhaahdo kelmadba ha ahaatee. waxay ku odhan jireen sida aan u leenahay u dheh. wuxuu si raganimo ku dhahantahay ugu jawaabi jiray carabkayguma awoodo inuu yidhaahdo. sidaasoo alla ka raali noqday ku sugnaa dhagixii weynaa iyo kuleelkii saxaraha. sidoo kale marka waxaadda la gaadhana inta qoorta xarig laga xidho ayaa la jiidi jiray waddooyinka maka. ciyaalkana waxaa la amri jiray inay dhagaxeeyaan. bilaal carabkiisu wax kale kumuusan dhawaaqi jirin nashiidadiisii muqadaska ahayd mooye axadun axad axadun axad. habeenkii marka la gaadhana waxay la geli jireen gorgortan, maxaa yeelay way daaleen. waxay odhan jireen beri ka dheh kelmad wanaagsan, ilaahadeeda aanu ku daynay waan ku daalnay tacdiibintaada, heer aan isu malaynay in aan nahay annagu kuwa tacdiibintu ku socoto. waxau yidhi bin mascuud allah ka raali noqdee dadka ugu horreeyey diintooda muujida waxay ahaayeen 7: rasuulka iyo abubakar, camaar iyo hooyadii, bilaal, suhayb iyo miqdaad. rasuulka iyo abubakar waxa uu alla ugu gargaaray qowmkooda. intaas soo hadhay waxaa la marsiiyey ciqaab, dil, garaacid, nooc walba oo cadaabta ka mid ah. kamaysan tanaasulin diintooda. arrinta bilaalna rasuulka kamaysan qarsonin. nebigu ka warhayey wuxuu nebigu odhan jiray haddaan waxaysanno bilaal baan saybsan lahayn. laakiin alla wuxuu soo diray abubakar sidiiq sida caadada ahayd. waxaa bilaal loo soo saaray saxarihii kulnaa, dhagixiisii weynaana dusha ayaa laga saaray. waxaa isaga oo ordaya yimid abubakar allah ka raali noqdeen. waxa uu yidhi waxaa dilsaa nin leh alla waa rabbigay, wuxuu u joogmaya adaa fasaadiyey oo fogeeyey dhibkan uu soo jiiday. waxau yidhi abubakar qaado in ka badan inta uu qalmo farahana ka qaad. sidaas ayuu abubakar ku xoreeyey bilaal. wuu soo garab qabtay. waxaa abubakar ku qayliyey hadal dheer. wuxuuna yidhi dadow ogaada inaan xoreeyey bilaal, waa walaalkay waana saaxiibkay. nebiguna ku farxay xorayntii bilaal. أيها الناس اشهدوا أني اعتقت بلالا فهو أخي وصاحبي إلى أن يفرقنا الموت. يا لأبي بكر. waxaa loo hijrooday madiina. waxaa la jiday aadaankii. nebigu wuxuu amray bilaal inuu noqdo qofkii ugu horreeyey ee u addima islaamka, kana addimo masjiduu nebigu ka yahay imaam. wadhahada subaxii lagu daro aadaanka assalaatu khayrun min annowm aadaan ka mid ahayn. laakiin waxaa la yidhi bilaal ayaa nebiga u soo bandhigay, nebiguna wuu jideeyey eedaanka subax oo keliya. ayaamu way socdaan. quraysh waxay go'aansatay inay ku duusho muslimiinta. umaya wuxuu damcay inuu ka gaabiyo dagaalka. waxaa u tegey abujahal oo wata dabaqaad uu ku soo ritay unsi. wuxuuna ku yidhi iska unsiyeyso, waxaad ka mid tahay dumarka. waxaa laga maarmaan noqotay inuu u soo baxo dagaalka si uu muujiyo inaanu ka mid ahayn dumarka. oo u soo baxay dagaalka isaga oo dhibsanaya. markii fooda la istiri rabay waxay goobtii dagaalku la gelgeetay kalkudhigga muslimiinta oo ahaa axadun axad axadun axad oo amray nebigu in la yidhaahdo. waxay isna gelgeshay wadnihii umaya. kelmaduu ku coodan jiray shalayta hore addoon ayaa maanta waxay noqotay halkudhig ummadeed. شعارنا اليوم كما أمر رسول الله أحد 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 أحد. waxaa halkaa ka dhacay dagaalkii u horreeyey ee dhex mara muslimiinta iyo mushrikiinta. dagaalkaas oo ahaa beder waxaa la isla dhex galay seefihii. dagaalkuna uu kulnaaday kuna sii dhowaaday gabagabo. bilaal wuxuu arkay umaya. waxa uu yidhi madaxii gaalada umaya, badbaada ima taallo haddaad badbaado. wuxuu la soo jeestay seeftiisii si uu dilo. wuxuu mar labaad si cod dheer ugu qayliyey oo ay dadkoo dhammaan wada maqlayeen ra'sul kufri umayat binu khalaf laa najawtu inajaa. waxa uu yidhi madaxii gaalada umaya,
badbaada ima taallo haddaad badbaado. waxa uu u soo booday sidii libaax dhaawacan oo arkoosi doona. wuxuu bartanka ka geliyey seeftiisii isagoo ka saaray dhabarka Umayya. waxaa ka soo baxday qaylo dheer oo ay wada maqleen dadkii oo dhan. muslimiintiina waxay isku dareen takbiirta iyo halkudhigoodii ahaa axadun axad axadun axad. أسر وفداء أسر وفداء رأس الكفر أمية بن خلف. لنجوت إن نجا، لنجوت إن نجا. أحدنا أحد، أحدنا أحد. muuqaalkeeni maanta waxaaynu ku soo gabagabaynaynaa intaas. wixii taariikhda bilaal ka dhiban waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaal kale. intaynu ku kulmayno muuqaal ku xiga waxaan idin leeyahay mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.